qaraxni qasaara waa mid dhaawac iyo maatay laba qof dhaawacan qarax xoogan oo ka dhacay gudaha caasimadda Muqdisho iyo faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo qaraxaasi muuqaalkan ayaan idin wadaagi doonaa balse marka hore muuqaalka la agsaarsina sheergaray naguna soo biir mahadsanid faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya qasaaraha ka dhashay qarax miino oo ka dhacay wadada warshadaha ee magaalada caasimadda Muqdisho kaas oo geystay qasaaro u badan dhaawac qaraxan oo ahaa mid xoogan ayaa si gaar ah waxa uu uga dhacay inta u dhaxaysa X-Control Afgooye iyo Haanta Dheer ee magaalada Muqdisho waxaana ku dhaawacmay ilaa 5 ruux sida xogaha hordhaca ay laga helayo qaraxaasi wararka ayaa sheegaya in qaraxan uu ka dhacay goob mashquul badan oo ay dadku ku badnaayeen taasoo keentay in mar qurax ay xaaladdu goobta isbedesho sidoo kale qaraxa kadib waxaa hakad galay dhaqdhaqaaqa wadada oo ay iskaga kala gooshaan gaadiidka dadweynaha kuwa raaxada maadaama ay tahay wadada warshadaha wada muhiim ah oo aad u isticmaalaan dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ammaanka kuwaas oo baaritaano kooban ka sameeyay goobta uu qarax ka dhacay waxaana hadda caadi ku soo dhaabatay ilaa ay hadda ma jiro wax hadal oo ka soo baxay laamaha amniga oo ku aadan qaraxan ka dhacay gudaha caasimadda Muqdisho gaar ahaan inta u dhaxaysa X-Control Afgooye iyo Haanta Dheer ee magaalada Muqdisho si kastaba khamiistii ay ahayd markii laamaha amniga ay soo qabteen 3 nin oo ka tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab isla markaana qaraxyo soo gelinayay gudaha caasimadda Muqdisho kuwaas oo ay soo bandhigeen laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya waxaa sidoo kale qaraxani ka horeeyay midkii dhacay 18 bishan kaas oo ka dhacay ceelgaabta laguna eegtay kolonyo galbinaysay madaxweynaha Soomaaliya oo ku sii jeeday furmaha dagaalka qaraxan ayaa haleelay mid ka mid ah 4 gaari ee gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya gaar ahaan nooca loo yaqaano bulburuufka oo aysan xabado karin waxaana mas'uuliyadda qaraxaasi sheegatay kooxda argagixisada Al-Shabaab weeraradan ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dalka ay ka socdaan howlgallo ka dhan ah kooxda argagixisada Al-Shabaab waxaana sidoo kale xusud mudan in xalay magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe lagu weeraray goob ay kooxda argagixisada Al-Shabaab ku dhulmaaleysanayay oo halkaasi ku tiilay